runtii in maaragtay kaga hormarnayna space annaga aan furno si aan maaragtay congratulations aan u dhahno sababtoo idinka haddaa fur lahaydeen Francis baad ku hadli lahaydeen laakiin annaga Soomaali waan ku hadlaynaa هاي الشلبة واحد فري مدن حسين أو رجع بوتي يا فري تويتر أرنتنا أنا اللي جهد لاي كنتي وأنا لو تاجر أي محمود علي يوسف شلي أو مركا تويتر بوها اسمه مركا من ده بلوجود في حسين وكو جوليستو هكذا كوجوجي ما شاء الله سعيد سودو كدر عبد الرحمن هذا الشيخ ترى لقو قبطيو ناجو كو قبط هذين الشيخ نمدي مكان نقط فيري وكحشمين يا شيخو أرنتني اسبسيدنا عادي معهن أرننا جوين باسعوتها markay kugu haboontaa lagu siinaya lagu qaado sayib soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا مغلاوة مرين si fiican Suhaybo ما سنت soo dhow aad baad ula socotay Suhaybo bal wuxuu ku guuleystay noo sharax oo codka ku helay أي aad baad ma santihiin وكل يوم فرحسنا هاي هدو عدكو iska khayda dhaafo aad ba laga raali noqon waxaan oran karaa Maxamuud Cali Yuusuf uu guuleystay guul uu mudnaa inuu guuleystay waxaan oran karaa waxa guuleysatay diblomaasiyadii waxa guuleysatay kala dambeyntii waxa guuleysatay sharcigii sidoo kale taacagsigeed waxa laga guuleystay foodadii iyo sadaqyaacii waa la ogaa yani labada rag ee u cadcad iyo background-googa iyo CV-googa taariikhda waxay soo qabteen waa la ogaa nineenoo ka shaqeyn jiray diblomaasiyadda iyo madax bannaanida Afrika nineenoo ka shaqeyn jiray foodada iyo qaska Afrika inta marka laga yimido waxaan Maxamuud Cali Yuusuf oo ducaynaynaa Allah ku asturo xilka waa guul soo yeetay dalkeena reer Djibouti waa guul soo yeetay walaalaheena Soomaaliyeed dhamaan meel walba ay joogaan وقولوا سويت جيسك أفريقيا أنت كديب محمود علي يوسف حان رجينا يا إنه ده ماشي أفريقيا هيدو حيث كان نقطة ميل من إمارات اللي رادو أكتيف بلاير كان نقطة مكي بلاير وكودون ما دحبناني دي سفر الجليو شالي ودار كيس ينوح يدوب يكرد عي يا سلاح مع الموضوع ودن بيسي مركا محمود علي يوسف يا دولة دي نجبوتي go'aan cad waxay horeyba uga qaadatay heed madax banaanida dhulka Soomaaliyeed iyo siyaasadda Soomaaliyeed marka waxaan rajaynayaa Maxamuud Cali Yuusuf inuu qayb libaax ka qaadan doono kala dambeynta iyo ilaalinta madax banaanida guud ahaan Afrika oo dhan taacagsigeed inuu gacan bir ah ku qaban doono sharcigana ku soo dabaali doono imaaraadka iyo cid walba wado in dalalka Afrika la kala jaro ama la kala gooyo waxyaabaha ku guuleystay waxa kamid ah Maxamuud Cali Yuusuf deenin 20 sano u dambeysay diblomaasiyadda saan hore soo sheegay soo shaqeynay waxa talabaad waxaan ogsoonahay Raila Odinga in doorashadii ugu dambeysay Kenya laga guuleystay marka candidate ay dalkiisii lagu aamini waayay oo dadkiisii u ka dhashay aamini waayeen sidee ugu aaminayaan Afrika sidee u aamini taas calaamad su'aal aad iyo aad weyn ahayd روح gurigiisii laga aamini waayay in degmadiisa ama tuuladiisa lagu aamino suuragal ma aha marka aad baan u faraxsanahay hadalku aan soo koobi walaalo badan baa kulay sugayo anigu bayn badan baan sugayay in codka la siiyo aad baan u faraxsanahay walaalaha Soomaaliyeedna kaalin weyn oo mugleb ay ka qaateen oo mowqifkooda ay cadeeyeen dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aad baan abaal ugu haynaa دي هورينا وينو قرب تاجناين ما أنت وينو قرب تاجنين إنه قلنا قرب تاجنا أدود ما سنتي إن شاء الله. هذا وين شعيب ومحسنت هاي صفة عم بانو كلا دكتور أنت أنا بدابسي وحربها سي معنا انترابشن كلا وسود عن شقاسم سودو كدر درين كاغسوية. أنا ومحسنت هاي أرتا رنتي guulahan oo kala markay dhacaan anigu dhaqan baan leenahay Soomaalidu waa kala dhaqanka iyaga waxa kamid ah marka la guuleysto qofka in la waaniyo wax loo sheego tusaale ahaan guurko kala markaan guursano ninkana waxa la yiraahdaa gabadhan farha u taagin waa walaasha way kula dhalatay hadaa dib u geysatay iska jir
saasa lagu waaniyaa iyadan waxaa la yiraahdaa ninkan waa walaalka hadalkiisa maqal hadaa diidid iska jir hooyadaa baa la soo guursaday adina waa lagu macnaheedu waxa weeyaan labada dhinac qeybba ninkana wiilkay canaantaan gabadhana dadkeeda canaanta sidaas oo kale waxaan arkay garaadyada Soomaaliya sanaag aan ayagoo sameynaya ninna meel dhaleecaynaya ninna amaanaya waa dhaqan jira marka waxaan leeyahay mar horta saakay marba meel ka qayb galay laga hadlayay aniga maba ogeyn magaciisana ma aqoon laakiin waxaan iska iri ninkan diinka guuleysan maayo laba siyaabood darteed waxaan iri marka koobaad waa nin wadankiisa ku soo fashilmay wadan kale lagu aamini maayo marka labaad qaybinta Afrika wada iyo gobol iyo waliba waxaan si toos u arbaabay inaan iraado ninkan wuxuu gaar ahaan wada qaybinta Soomaaliya marka kadibna hadalku iska soo gaabiyay maadaama Englishka aad aan isku fiicneen anagu saak haddana waxaan arkayay mar labaad markaan noqdayna hadda ninkii guushiisa la sheegay okay guuleystaa maxaan leenahay marka Soomaali ahaan niyo horta waa guushii labaad Soomaali u keentay Djibouti xuriyadda marka la qaadanayay waxaan ognahay Xasan Maxamed Siyaad Bare inuu garab ku siiyay Djibouti maxaa yahay Xasan Guuleed Abtidoon balanqaadiyo badanna uu galay laakiin laa qadar Allah ma dhicin go'aan wuxuu qaatay inuu iska sii joogo oo wadanka Soomaaliya uusan wax ku soo darsan hadda anagu madaxweyne Siyaad baa mas'uul laga ahaa wuxuu xurbaad u tahay khiyaarna waa leedahay laakiin anaga garabaan ku siinay dalkana waa dalka fiisina kuma soo galeys waa tuu yiri qodbadiisi maanta maxaan leenahay marka Djibouti horta guusha waxaa la yiraahdaa gaarideeda ma dhib male laakiin xanishadeeda daran guusha marka la gaaro wixii ka dambeeya ayaa la iska rabaa xanishadeeda runtii ninkan anigu waa maqlaay waa horta erey waan ka hayaa uu yiri oo su'aal la weydiiyay waagi la isku haystay badda oo la yiri adinka sidiinaba wasiirka arrimaha dibadda markuu u hadlayay Djibouti madax banaanida Soomaaliya ma aaminsantiin iyo gooni goosad wuxuu yiri waxaan aaminsanahay madax banaanida Soomaaliya maadaama Djibouti wax badan lagu eedeeyo oo inay Muuse garab siinaysay inay ma aragtay wax la wadwaday wax baa lagu eedeynay laakiin asiga marka la wareystay waxaan aaminsanahay buu yiri madax banaanida Soomaaliya okay maanta marka today ninka la doortay hadda anaga looma dooran ama uma dooran magac iyo Soomaali iyo magac u yeelid looma dooran waa inuu ka soo dhalaala uu cadeeyaa oo runta ka sheega hadalkii uu yiri waagi asiga campaignka ku jiray iyo hadaladiisii runtii waxaan ka rabnaa anagu maadaama wadanka Soomaaliya weerar cad lagu hayo oo ah waliba dhanka Ethiopia iyo Kenya waan ognahay madaxweyne Ismaaciil waagi farmaajo wuxuu garab ku siiyay Kenya oo igad soo baar marka la yiri dagaalka ka socda luuq wuxuu yiri meesha waxba kama jiro farmaajo waa beentiis waa farmaajo tuu calaaqaadka u jaray dagaal baa dhexmaray marka isku mid ma aha madaxweyne maxamed Ismaaciil waxa laga yaabaa dagaal kale inuu ku jiray Soomaalidu waa reer ahaan waxyaabo kale ku qadiray anigu qiyaas kale qaatay waan arkay laakiin maanta ajnabiyan ishayna Soomaali dhexdeeda isma hayso waxaan ishaynaa Ethiopia anaga iyo Kenya hadduu wax ka qaban waayo ama runta u sheegi waayo hadda waxay noqonaysaa wixii waa la iskala noqonaya oo maxay ahayd sheekada sidii ma ahaanayso laakiin waxaan leeyahay anigu runtii waa soo dhaweynaya waliba aad iyo aad sida saakay waxay iga ahayd anigu ninkaasan jeclaa iyo asaan watay ma ahayn analysis bay iga ahayd iyo tilmaan lanseebu ku yaa guuleysanay ayagoo udinka ku hayaan u galay meesha luqadda carabiga inaan ku hadlano waa la diiday Englishkayga iska yareystay waxaan u sheegay in ninkaas soo baxaynin soo baxayo ninka laba siyaabood baan sababeeyay sababtoo taa ah iyo tan labaad luqadda ay kaalmeynayso Faransiiska dawladaha gumeystay ayaa u badan fadhiga Afrika codad buu ka helayaa si dirta ah marka wayna dhacdo
sheekh nuur oo salka maada taageersaneen saasa u fahmay miya bas waa taageersanayd bas waa guulaysanaya salka maxamuud ma taageersaneen miya anigu macnaha ninaad wadatid tunka ku wadatid in nin lagu yiri war ninkan dagaalku galaya iyo xoolihiisa iyo ciidankiisa qiyaas labada ciidankee baa guulaysanaya lagu yiri iyo labada ciidan mid la jirtay isku mid ma ah aniga ninkan qiyaas ahaan baan u yiri inuu guulaysanayo xagga luqadda countryga ilaan gabar iga horeysa waxay tiri luqad looma baahna meesha waxa loo baahan wax bay sheegtay waxay very important language of the country luqadaha Faransiiska ku hadlo dhan baa ninkan cod siinaya number 1 uu kaga guulaysanaya waxa kale uu kaga guulaysanaya ninkan waa nin fashion maxay wadankiisa ka soo fishilmay waa nin wadamada kala goyn raba oo Afrika dhexdeeda dhibaato ka wada marka waxyaabahaas aan sheegay laakiin ula jeedadeeda waxay ahayd seeba laba saddex waxa la riyaa guulaysan kara taasay ahayd laakiin ula jeedadeeda ma ahayn taageerid iyo tunku wadasho ma ahayn waxaan taageeri doonaa mar alla markii hadda uu xilka qabto oo naga qabta Kenya iyo Ethiopia soo dhalaalo ayaan taageeraya anigu laakiin guusha Soomaali ahaan waan la qabaa because waa nin Soomaaliyeed waan ogahay aniga Djibouti maadaama la igu yiri dhalasho dad ma siiyaan nin dhintay in lagu soo helo waa la yiraahdo wax lagu siinayo nin dhintay wiilkiisii 700 dhinta lagu soo raadina sida Kenya oo kala ma aha Ethiopia kalena ma aha la yiri dhalasho ma bixiyaan Soomaalidu waxba ma siiyaan marka waa ogahay taa anigu taartix gelin maayo ayagay jirtaa laakiin waxaan ka rabnaa anagu ninkan la doortay inuu ka soo dhalaalo waan ognahay challenge-gu sameynayay badda marka la bixinayo wuxuu bad ana haya taa waxaan u qaatay aniga dagaal buu diidanaa challenge-giisa badan bixinayna buur laba jeer buu yiri asoo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti ah marka ula jeedis ma aqaan challenge-gu sameynay ma dagaal inaan galno diidanaa mise challenge-ga oo economical ama ganacsigu noola challenge gareynay waayo baddu u siinay Ethiopia uu leey kaale bad ana idin haya ma dagaalku noo diidanay dhibaatada mis challenge economically of power uu ku jiri ma naqaan anu taasina way jirtaa marka waan arkaynaa wuxuu la soo baxay ayaan sheegaynaa anu wixii ka dambeeyay maanta waan soo celi sheekh nuur aad baad u baadsan tahay halkaa noo joog ayo midaay quickly midaay naga tagayo kabal medicine siinaya fayba kugu soo noqon doona ma santa Cabdiraxmaan Samado waa hawl biyar ay hayso horta waxaan rabaa inaan runtii aad u hambaliyeeyo runtii guusha weyn oo maanta ummadda Soomaaliyeed ay gaareen gaar ahaan shacabkii dowladda Djibouti diblomaasiyad runtii laga wada shaqeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna uu dadaal xooggan ku bixiyay sidii ku guulaysan lahaa Maxamuud Cali Yuusuf runtii diblomaasiyadaasna way hirgashay inagoo aan ognahay wuxuu arrinkaas wuxuu aad ugala qayb qaatay madaxweynaha campaign-ka waayo laba dal waxa ay jira Afrikaan ah oo UN Security Council-ka ku fadhiya Algeria iyo Soomaaliya labadaas dal marka waxay ka qayb qaateen campaign culus u galeen in Djibouti candidate-kiisa uu guulaysto marka kursigan runtii waa kursi muhiim ah oo waxyaalaha muhiimku ah kamid ah inuu ajendayaasha midowga Afrika inuu promote gareeyo chairpersonka prioritieskas in la kala hormariyo in dalalka dhibaatada ku ah ama reer galbeedka munaafaqadooda in la soo dhaxmaro chairpersonka iyo African Security Council-ka aad ogtihiin wadamada midowga Yurub inay aad u lugooyaan oo hadda howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo kale in al-shabaab la soo afjaray arrimo badanba in dhinaca EU-ga laga lugooyo waxaa kaloo mataqaanaa aad ogtihiin wadamada China iyo dalal badan oo caalamka ah waxay investment iyo dhaqaale fara badan geliyaan